بسم الله الرحمن الرحيم. xubnaha golayaasha dawladda si gaar ah wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo dhalinyarada oo maanta halka marti loogu yahay mas'uuliyiinta wasaaradda iyo dhammaan bahda sportiga ee halka joogta qaybaheeda kala duwan gaar ahaan dhalinyaradii ka qayb gashay maanta tartanka gaaban ee marathonka ee 5 kilomitir waxaan oran karaa dhammaantiin bahambalyo intii ka qayb gashay waa wada guuleysatay guushiina waxaa saldhig u ah inaad u hollateen oo isku daydeen inaad tartantaan orodkaas aad soo marteen waxay ka dhigan tahay dhammaantiin inaad wada guuleysateen waxaa wasaaradda iyo macallimiinta sportiga u sahlan inay kala bartaan dhalinyaradooda dhinaca orodada ah siday u kala haboon yihiin iyo siday u kobcin lahaayeen kuwa weli u baahan tababar dheeraad runtii sportigu muhiimadda uu leeyahay guud ahaan bini aadanka gaar ahaan xukuumaddan marar badan baa halka ka sheegnay bulsho ahaan bulshadeenu dhalinyaray u badan tahay dhalinyaradu markii magaalooyinka la soo galay dhalinyaradeena miyiga joogtay waxay ahaayeen dad fardafuulka iyo orodada iyo bootinta iyo inta badan sports ah laakiin markii magaalooyinka la soo galay waxaa batay fadhigii sheekadii iyo dhaqamo aan qofka bini aadamka ka qayb qaadan karin noloshiisa dambe haddiiba ilaahay uu cimri siiyo marka runtii wasaaradda waa ku garab taagannahay xukuumad ahaan inaan ku dhiirigelinno gacan weyna ka geysanno sidii dhalinyarada loo horumarin lahaa sidoo kale hay-adda UNFPA oo runtii hay-adaha xagga dhalinyarada wasaaradda aada uga kaalmaysa uga gacan qabata iyadana si gaar aan ugu mahadcelinaynaa iyo baxsan waxaan rajaynayaa inay sii socdaan guulaha sportska ee la gaarayo waxaad ogtihiin garoomadii qaybtood waxaa lagu hayaa gacanta kuwii kala diyaargarowgaadaa jira kulamo sports iyo kuwo kale oo dhalinyarada ah waa soo socda iyo dadka cuslaadada waa ku daraysan dhalinyarada cuslaad aniga iyo jaamac dhiga dheere ee cayaareen cayaaraha dambe marka insha Allah waxa weeye sportsku annagoo dhan baa u baahan gabdho iyo wiilalba siday u kala haboon yihiin iyo meelaha ay ku kala haboon yihiin in laga dhigo waa haboon tahay caafimaadkeena ku jira adduunku maanta waxaa la yiraahdaa sportsiga waxa loo dhiirigelinayaa in la yareeyo kharashka ku baxa caafimaadka waad aragteen diyaaradaheena dadka ugu badan ee raaca waa dad jira Soomaa dadka la qaado oo diyaaradaha buuxshay waa dad jira cudurrada ugu badan ee dadkeena hadda aad u soo dilooday waad aragteen wadna xanuunka iyo kaliya xanuunka iyo macaanka iyo waxaas oo dhan waxa saldhig u ah waa sports la'aan marka
dan baa noogu jirta in aan yarayno dhaqaale ahaan iyo caafimaad ahaanba dhallinyarada ruuxaddooda dee waxbaa u sii dheeroo qofka hadduusan fit ahayn naftarkiisa si u shaqaystaa adkaanaysaba marka dardaaran badan dhallinyarada waa haysataana u malaynayaa hadda baxsan waxay lahayd haddaa inaad iscaataysaan si aa u qurux badnaataan waa fariin ay gabdhaha kasii daan u malaynaya marka waxaan laga rabaa inaad maaragtay sportska aad waqti badan gelisaan oo runtii aad waxaan uga xumahay dhallinyaro sports ah oo waqti badan gelinaya haddana balwad ku darsaday ninkaas waa nin isgubaaya horta sportska haddii balwad lagu daro automatically waa nin tararka isku daaro isgubay wey marka waxaan iga waadinayaa haddaad sports gasheen dhinaca kaleeto ka taxadara waxyaabaha maaragtay sportska halista u ah waxaa ka mid ah waxyaabaha muqaadaraadka ah insha allah waxaan rajaynaynaa inaan intaa kusoo gaabiyo dhallinyaradii kaalimaha koowaad iyo labaad iyo saddexaad gashay iyo guud ahaan waan inii mahad celinaynaa waana ku faraxsannahay inaan mar walba garab taagnaano waana na soo xasuusinaysaan inay dad badan oo cabdi bilow oo kale soo bixi doono sida hadda muuqata dhallinyaradii hadda ordaysa ma sahlanayn shan kilomitr markay soo ordeen iyagoo weli in la sii daayo u baahnaan lahayn 20 waa dhamaystir lahayn baan u malaynayaa aad bay maaragtay enerjigooda u fiicnaa aad baa u mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullahi